معلم wuxuu ka soo bilowday xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo macalinkiisa oo ahaa malakul jibriil ilaa haddana way soo socotaa step aninkana wayna soo maraysaa jiilka naga sii dambeeyna way sii gudbaysaa macallin amaantiisa ma lagu soo koobi karaa halkan هذا أفلح أقول ديجايو أنتي دنيد هذا مريه بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال iyo dhageystayaal soo dhawaada waa walaalkiin ibnu Abubakar fadlan hadaad ku cusub tahay YouTube kan subscribe saar like saar siina share garay mahadsanid maanta waxaan idin wadaa barnaamijkaas oo ah 22 November maalinta macallimiinta waxaan joognaa maanta Howlwadaag Secondary School waxaan arday badan ayaan waxaan weydiin doonaa su'aal oo ku saabsan macallimiinta la socod wanaagsan okay waxaan soo qabtay qofka koowaad soo dhaw soo dhaw magacaaga saddexan inoo sheeg Abdullahi soo dhaw waa markii kugu horeysay ma aan ka soo muuqato janaalkaaga maanta waa 22 November waa maalinta macallimiinta sidee u aragtaa fasalkee tahay iskuulka ma kamid tahay ardayda dhigato wallahi iskuulka waa dhigtaa waxaan fasalka frontier maanta waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalinta macallimiinteena waxaan soo bartay waa maalin aad u qiimo badan oo farxadeena aan soo koobi karin okay Abdullahi aan ku weydiiyo su'aal macallimiinta ayaa ugu jeceshahay ama way ku wada siman yihiin macallimiintaada wallahi way wada siman yihiin laakiin dad oo macallimiin waxa jiro oo aad u jecelahay sida macallinka Ingiriiska oo kale like mathematics oo kale macallimiinta u jecelahay macallimiintaas si fiican su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyo maadooyinka ayaa xiisaysaa oo marka la joogo fasalka wallahi maadada aan xiiseeyo oo fasalka waa maadooyinka xisaabaadka sida chemistry-ga xisaabaadka ku baxo kale iyo physics iyo mathematics okay soo dhawaad kule Abdullahi okay waxaan soo qabtay qofka xiga soo dhaw magacaaga saddexan adoo walaale waxaan magacayga Maxamed Duraan Abdullahi Maxamed Duraan Abdullahi soo dhaw ma kamid tahay ardayda dhigata Howlwadaag sare waa kamid ahay maanta waa ku faxsanahay maanta ay tahay 21 November ay tahay maanta macallimiinta horumar wacan baa macallimiinta waa maastii macallimiinteena sharafta mudan okay sidoo kale waan kaaga mahad celinayaa sidoo qurux badan aad ila qayb qaadanaysa barnaamijkan Maxamedow fasalkee ayaa tahay waxay form 3B ما شاء الله سؤال aan ku weydiiyo markii fasalka la joogo ama oo iskuulka aad dhigato maadooyinka ayaa xiisaysaa qof walba maado ayuu xiisayaa Soomahan ada maado oo si khaas ah u xiisaysa ma jirtaa haday si jirto magacyadooda noo sheeg maadooyin ay xiisay jiraan waana fara badan yihiin okay qaar kamid ah inoo taataabo waxa kamid maadooyinka xiisayo maadooyinka biology-ga iyo physics-ka xisaabka واو ما شاء الله هرمر وعن أيام كلها هل الله معلمين محل هذا؟ معلمين وعلى معلمين ومعلم مسيحيين إنك سو معلمين نوجد دلالين وحبرشان أي حبرشان أذنور كلميان ومسيح معلمين. أوكي سوري أنا كل محمد. دولا. أقول ديجايو أنتي دنيد هذا مريه أماني هذا وناغنا جمودا soo qabtay qofka xiga soo dhaw magacaaga saddexan magacaygu waa Cabdi Xasan Abshir Cabdi Xasan Abshir Cabdimadow ma kamid tahay ardayda dhigata Howlwadaag Secondary School okay maanta waa maalinta macallimiinta waa 22 November fasalkee tahay form 3 ما شاء الله maanta munaasabada awgeed 22 November maalinta macallimiinta maxaa leedahay hal ilawo
والدينتي لي كسكو معلمين أنا صوب بريان معلمين أتسكيشي معلمين سكوي كراواكو malsoo karo maasha Allah cabsimadow waan kaaga mahad celinayaa ma jirtaa maadooyin aad xiiseyso si khaas ah u xiiseyso marka lagu jiro fasalka okay maadooyinkaas maxaa ka mid ah مادة حساب فيزيكس maasha Allah ardada badanaa waxay u badan yihiin maadooyinka xisaabaadka sida chemistry physics iyo xisaabta balse waana saddex qof ayaan soo qabtay laba ka mid ah waxay dhaheen chemistry physics iyo xisaab ayaan xiisay mid ka mid ah wuxuu dhahay biology iyo wixii la mid ah maasha Allah ardada waxaan leeyahay congratulations maalinta macallimiinta waxaan leeyahay hambalyo abaalkiin inta lagu ma soo koobi karo aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waxaan soo qabtay qofka xiga soo dhawo magacaaga saddexan magacaygu waa Xuseen Maxamed Xuseen Xuseen Maxamed Xuseen soo dhawo ma kamid tahay ardada dhigata howlwadaag secondary school haa waan ka mid ah ardada dhigata iskuulka sare howlwadaag okay maanta waa maalinta macallimiinta 21 November waa munaasabad aad iyo aad u weyn maanta maxaa farxad oo aad dareemaysaa oo aad ku muujinaysaa 21 November maadaama ay tahay maalinta macallimiinta maanta farxadii lama soo koobi karo sababtoo ah waa maalintii macallimiinta Soomaaliyeed macallinna inta lagu soo koobi karo waa laga sheekeynaa hadii la waqti badan ay qaadanaysaa marka waxaan leeyahay hambali ayaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay hambali Xuseen oo ma jirtaa maadooyin aad xiiseyso marka lagu jiro iskuulka ama fasalka haa way jirtaa maadooyin aad xiiseeyo okay qaar ka mid ah ma noo sheegi kartaa 12 maado way xiiseeyaa laakiin waxa si aad u jecel 4 scientific waan kaaga mahad celinayaa soo dhawo ayaan ku leeyahay Xuseen okay waxaa soo qabtay qofka xiga soo dhawo magacaaga saddexan رعد عبد الرحمن محمد okay racdo ma kamid tahay ardada dhigata howlwadaag secondary school يس waxaan dhigtaa howlwadaag Berenberi secondary school okay maanta waa maalinta macallimiinta 21 November maanta farxadaada ka waran iyo maxaa laayay maalinta macallimiinta awgeed farxadeeda lama soo koobi karo run ahaantii waa maanta maalinta macallimiinta Soomaaliyeed maxaa yeelay barihii marar badan waxna soo baray ayaan waxaan go'aansanay inaan wax yar isgiiza oo sameeyno waxaan wax ka badan uu naga istaayilaa okay hal iyo laba maxaa leedahay macallimiintaada guul iyo nabad iyo waxaan idin rajaynaa bash iyo intaan in ka badan inaa gaartaan okay ma jirtaa maadooyin aad si khaas ah u xiiseyso marka lagu jiro fasalka ها aniga maadada ugu jeclaa dugsiga dhexe waxay ahayd maadada cilmi bulshada haddana marka aan soo noqday secondary-ga maadada ugu jeclaa waa maadada biology-ga maasha Allah soo dhawo horumar wacan ayaan ku leeyahay insha Allah okay waxaa soo qabtay qofka xiga soo dhawo magacaaga saddexan dhawahay magacay Maxamed Ciise maxamedow ma kamid tahay ardada dhigata howlwadaag secondary school aad iyo aad okay maxamedow soo dhawo ayaan ku leeyahay maanta waa munaasabada maalinta macallimiinta 21 November farxadaada ka waran maanta wallahi farxadeeda lama qiyaasi karo aad iyo aad waa maalin aad weyn maalin okay inkastoo maanta 21 November ay tahay maalinta macallimiinta Soomaaliyeed macallimiintaada maxaa laayay hal ilo maxaa dhiileed in farxad ku noolaadaan weligood washbashii qaro okay sidoo kale ma jirtaa maadooyin aad xiiseyso xilliga fasalka lagu jiro okay maxay ka mid yihiin maadooyinkaasi biology-ga maasha Allah soo dhawo ayaan ku leeyahay maxamedow okay haddana waxaan soo qabanay qaar ka mid ah macallimiinteeda howlwadaag secondary school waxaa la fadhiyo macallin qaar ka mid ah macallimiinta soo dhawo macallin magacaaga saddexan magacaygu waa xiliyaa macallin Muuse Cali Weheliye waxaan ka dhigaa maadada iskuulka waxaan ka ahay macallin waxaan ka dhigaa maadada Soomaaliga marka waxaan ardayda u rajeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in ay wax bartaan waxaan dhisnaa insha Allah mustaqbalkooda inaan dhisnaa ayaan saas rajeynaynaa insha Allah taala okay anagana waa ku rajeynaynaa macallin maanta waa maalinta 21 November maalinta macallimiinta maanta farxadiina lama soo koobi karo saan dareemayo hal iyo laba macallimiinta adiga wax ku soo baray maxaa leedahay macallimiintaadii waxaan leeyahay hambaliyo maalinta macallimiintaan leeyahay oo loo asteeyay 21 November waa maalinta macallimiinta macallinka wuxuu leeyahay gooni ayuu leeyahay waa waalidkii labaad oo waddanna wuxuu ku dhisan yahay waa macallimiin iyo xagga ciidanka iyo xagga macallinka iyo wadamada ka dhisan yihiin
marka waxaan aad iyo aad u rajaynaya insha Allah tacaala macallimiinta iyo macallimiin haysa laga dhigo oo tayo leh oo mustaqbalka waddanka iyo dadka u dadaala kana dhisa xagga waxbarashada insha Allah tacaala sidaas ayaan rajaynaya insha Allah. Okay insha Allah macallin anagana sidoo kale waa ku rajaynaynaa waxaan leenahay maalinta macallimiinta hambalyo. Assalaamu calaykum warahmatullahi. waa tahay waxaan soo qabanay haddana qaar ka mid ay ka dhigaan howlwadaag secondary school soo dhow ustaad magacaaga oo saddexna noo sheeg. bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin wa bihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin waa dhowahay magacayga waa axmed maxamed yuusuf waa in soo dhaweynaya. Okay ustaadi maanta waa 21 November maalinta macallimiinta Soomaaliyeed maanta macallimiinta farxadooda lama soo koobi karo ustaadi maxaa ka dhigtaa iskuulka howlwadaag secondary school. bismillah waxaan ka dhigaa maadada ingiliishka maanta waa maalintii macallinka 21 November 1974 baa la iclaamiyey in macallinku uu mudan yahay maalin u qaas ah marka dugsiga howlwadaag sarana ka shaqeeya in muddo aan waxaan ahay macallin maadada ingiliishka ka dhigo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay macallinimada muddana waan ku jiraa. Okay ustaadi waan kaaga mahadcelinaynaa anagana waxaan idin leenahay hambalyo maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November oo dhammaan macallimiinteena waxaan leenahay hambalyo. idinkana aad baa u mahadsantihiin ardayda Soomaaliyeed habeen iyo maalin u taagan inay wax bartaan ayaguna waxaan leenahay soo dadaala insha Allah adina kale mustaqbal khayr qabo oo ifaya in rajaynaa waa mahadsantihiin insha Allah ustaadi waa mahadsan. Okay waxaan soo qabanay qaar ka mid ah ardayda dhigato howlwadaag secondary school soo dhow magacaaga saddexan. ما شاء الله أدي هذا ودواء مقعي ومحمد قدر عبد الرحمن أحمد. محمد قدر عبد الرحمن أحمد ما كملتها أرداد دقتها هولوداك سكندري سكول. أدي ناكمده. أوكي محمدو مانتوا مالنتا معلمينتا Soomaaliyeed 21 November ومالن أيها أجارة مالنتا محا فرحة هذا كمدا وأد هل إلا وأد نوشيجيسا. والله أدي والله فرحتي المسكوي كرو ما أنت معلمين تناك صام أدي هذا أوفر حسنا هاي أنا إسكول سر هولدا كتيرسن. أوكي محمد ومجران مادوين أو سخاسة أد وحيسيسو مركل وجرو فصل هذا. في عن سيد مادة فيزيكية يو كيمستري يمادة في الصومالي. ما شاء الله وأرديجي أفراد وحيسيو مادوين أو scientific subject سيدا كيمستري فيزيكس كيو حسابات أرداد بدنان مستقبل كود وحي برن دونان سئلة تهاي أنا رأي أهان إني برن دونان engineering وايو قفل بوحوك في عيا أيو جامعة كبرنا يا هدي أد فيزيكس أد كفي عنتاي engineering برنيسا حسابات كسيدو كله هدي كيمستري لغيره كيمستري قفل كفي عن وننك أيو عفماتك سودو يا كلها محمدو إن شاء الله عادي بعده. أوكي waxaan soo qabtay qaar ka mid ah ardada howlwadaag sare waxa ila joogo arday ka mid ah ardada soo dhaw magacaaga saddexan. waa dhaw aad iyo aad waxaan ka mid ah maanta ardayda u daaldegaysa maalinta macallimiinta magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed. Cabdiraxmaan soo dhaw ku leeyahay maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November waa maalin ayaga u gaar ah maanta farxadaada ka waran bal. والله فرحتي ما أنت لما سوكوا كروايو مالنتي معلمينتا كويلا تنكنوا فيبر هبت الجرس دي والله ما أنت مال يقومهم سماه بجرت أمانة وايو قف كنا صو قرب خبتي أو وحنا صابري أو الدنيا أساقين نرعسي مالنتي سواي وإنا أماد علينا يا مركا معلمينتين والله أمان ضعنا مكدالينو aad iyo aad waan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ila jaan qaaday barnaamijkani. Okay Cabdiraxmaan ma jiraan maadooyin ah xiisayso xilliga fasalka lagu jiro maadooyin si khaas ah oo xiisayso ma jiraan. way jiraan. Okay maxaa kamid ah maadooyinka ah xiisayso. والله aniga daaqayso loo maad oo xiisay jirto waa xisaab iyo fiiskis. ما شاء الله وأرديجي شناد وحيسيو مادوينك حسابك يو فيزيكسك marka waxaan leeyahay ardada dhan mahadsantihiin waxaan rajayn doonaa inay bartaan faculty of engineering soo dhawaad ku leeyahay Cabdiraxmaan. Okay waxaan soo qabtay qaar kamid ah ardada dhigata howlwadaag secondary school soo dhawaad magacaaga saddexan. dhawaay bismillaah magacaygu waa Aadan Cabdullaahi Cumar. Aadan markii kugu horeysay miyaad ka soo muuqanaysaa janaalkan ama waxa marar badan ka soo muuqatay. janaalkan horna waa arkay waa markii labaad sidaan filaa. Okay Aadan ma kamid tahay ardada dhigata howlwadaag secondary school. yes howlwadaag koowaad ak soo bilaaway ilaa halaan from 3 amaray ilaa hadda waa dhigtaa. ما شاء الله maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November
maanta farxadaada saa u jeedo lama soo koobi karo aad baad u soo labisatay macallimiintaada maxaa leedahay hal iyo labo macallimiintayda kun iyo kow jeer waan baliyeenayaa maxaa yeelay macallimiinta koowaad igaga soo bilaabeen ilaa hadda waa isla soconaa qaar ka mid ah sidaas darteed macallimiinteeda waan baliyeenaa maalinta macallimiinta okay aadan ma jiraan maadooyin aad isku fiican tihiin xilliga fasalka lagu jiro qof walba maado ayuu ku fiican yahay 12 maado kuma fiicno qaar ka mid ah ayuu si fiican u xiiseeyaa ma jiraan maadooyin si khaas ah u xiiseyso way jiraan okay ma noo sheegi kartaa haday macquul tahay waa maadada ingiliishka iyo fiisigiska maasha allah waa ardaygii lixaad aan umaleynay oo xiiseeyo maadada fiisigiska maasha allah ardada waxaan leeyahay hambaliyo soo dhaw aadano dhawaay okay waxaa soo qabtay qaar ka mid ah ardada soo dhawow magacaaga oo saddexan marka hore waa dhawahay magacayga saddexan xasan maxamed mukhtaar xasan maxamed mukhtaar soo dhawow ma ka mid tahay ardada dhigata howlwadaag sare ها بقول كيف بقول اوكي حسن وسودو فصل كي اياتا نيو بين جون اسكجي ان شاء الله ولا سنتكم فوم 3 فوم 3 اوكي حسنو maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November maanta farxadaada ka waran macallimiintaada maxaa leedahay hal iyo labo والله نيو فرحتي hortigay inta meeqa koob koro waayo geeg macallimiinta xafladda ka iskoolkii aan dhashay waraysan biyahay صح ما شاء الله horta aad aan ka faraxsanahay aad ugu faraxsan tahay ma sha Allah xasan oo ma jiraan maadooyin si khaas ah u xiiseyso inta lagu jiro fasalka والله نيو لما ماده انا كلهم هي جرت لما ناس بادر ولا biology and physics ما شاء الله waa ardaygii toddobaad oo xiiseeyo maadada physics ma aqaan maadada physics waxa lagu jeclaado dad badan waxa way ka cawaadayaan laakiin in badan hadda ardada aan wareystay badanaan waxay leeyihiin waxaan xiiseeyaa maadada physics okay xasanow mustaqbalka maxaa baran rabtaa faculty ayaa dhigan rabtaa jaamacadda والبدن يقول شيء سنة لكن حالي لما أنا في يوم قاد لما لي أنتين أسمع لي أيه عماد مس كمبيوتر ما شاء الله سودو يا كل الله كبارسي وادوا إن شاء الله أوكي سودو مقعد وسدحن بسم الله مقعي وأبشر عمر محمد أبشر وما كملت أرض دقتها هو الوداع سرا سكول ها طبعا اوكي maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November maanta farxadaada ka waran macallimiintaada hal iyo labo maxaa leedahay ما شاء الله horko alxamdulillah ilaaha maad iska leh macallin horko amaantiisa hada waa soo koobayna aadahan maghribka anugu la adima hadii nagu la dhaafinba laakiin macallin wuxuu yahay qof walba way dareemi kartaa macallin wuxuu ka soo bilowday xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam oo macallinkiisa oo ahay malakul jibriil ilaa haddana way soo socotaa step anikana wayna soo maraysaa jiilka naga sii dambeeyna way sii gudbaysaa macallin amaantiisa ma lagu soo koobi karaa halkan okay abshir fasalka ayaa tahay ما شاء الله فصلك فوم 2 ما jiraan maadooyin si khaas ah u xiiseyso ha dabcan okay maadooyinkaas ma noo sheegi kartaa maadooyinkaas waxa kamid ah tarbiyada carabiga kii fiisigiska biology-ga adi maadooyinka dhici karta ma insha ma sha Allah waa ardaygii sideedaad oo xiiseeyo maadada fiisigiska ma sha Allah mustaqbalka maxaa rabtaa inaad adiga barato faculty ayaad rabtaa inaad barato bismillah ma sha Allah waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo hamigeena ka dhex guuxa inaad barto oo igu dhiirigelisay waa IT ma sha Allah soo dhawaad ku leeyahay ma sha Allah dhawaad okay waxaa soo qabtay qaar ka mid ah ardada soo dhawow magacaaga oo saddexan waa dhawahay magacayga ayaan maxamed xasan ma ka mid tahay ardada dhigata howlwadaag sare school ha okay fasalkii ayaa tahay form 3 ma sha Allah ayaan maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November maanta waxa ka jirto iskuulka saan dareemaya xaflad dareenkaaga maanta waxa uu muujin lahayd macallimiintaada wallahi dareenkayga shucuurteeda way kacsan tahay because hal eray qofka ku baraa maanta macallin ku yahay macallinkana muhiimad weyn oo noo leeyahay anaga haddaan nahay arday marka waa ku faraxsanahay okay ma jiraan maadooyin si khaas ah u xiiseyso marka fasalka lagu jiro ha okay maxaa kamid ah maadooyinkaasi tarbiyada xisaabta iyo Soomaaliga iyo taariikhda ma sha Allah su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiin doono waxay tahay mustaqbalka maxaa rabtaa inaad barato jaamacadda dhakhtar national ما شاء الله نرسل سود ويان كلها waxaa soo qabtay qaar ka mid ah ardada dhigata howlwadaag sare school soo dhaw magaca waa saddexan
بسم الله وأنا هي مقعي وفاطمة عمر محمد. faadumo cumar maxamed ma ka mid tahay ardada dhigata howlwadaag sare school ها وكمدة هاي. okay fasalkee ayaa tahay Form 3. form 3 maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed 21 November maanta dareenkaaga maxaad ku muujin lahayd inkastoo maalinta macallimiinta Soomaaliyeed ay ku aadan tahay 21 November ما شاء الله والله dareenkayga aad iyo aad lama soo koobi karo. okay hal ilo maxaa leedahay ma gabay aan oo qaaday aan oo tirnay ama hees aan oo tirnay macallimiintaada والله inkastoo hadirtan xataa ka soo baxay in amaan macallin soo qaado oo igu adagta. okay dhib ma lahan ma jiraan maadooyin si khaas ah aad u xiiseyso xilliga fasalka lagu jiro aad iyo aad okay ma noo sheegi kartaa maadooyinkaasi waa maadooyinka xisaabta iyo physics-ka iyo biology-ga ما شاء الله وأرضي سجالات أو حسيسو مادة فيزيكا أرض بدن ويجعليهن مادة فيزيكا ما كان وحلوج على ضد بدن ويكعباض يعني ضد بدن ويجعليهن ما شاء الله قفل بمسك حديث أيك حرنت هاي نسولو يا كلها ودوا هاي أيوة حاسو خبرنا قار كميتا أرض سولو مقعد سدحن بسم الله وعدنا مقعي وأمين محمد حسين أمين محمد حسين ما كميتا أرض دقيقتا هو الوداك سكندري سكول ها اوكي فصل كيتا فصل فم 3A فم 3A maanta ka waran waa maalinta 21 November maalinta macallimiinta Soomaaliyeed ka waran bal dareenkaaga aad u faraxsanahay walaa maanta macallinkan Soomaaliyeed in oo xaflad in maalin ay leeyihiin macallinkan macallimiinta hadda maanta macallin jir lahayn adduunyada bahar ma gaari lahayn macallin wax loo qiyaas ma lahan okay ma sha Allah aamino ma jiraan maadooyin si khaas ah aad u xiiseyso marka lagu jiro fasalka waa jiraan okay ma noo sheegi kartaa waxaa xiiseeyaa biology-ga ma sha Allah biology xiiseysaa marka maxaad baran rabtaa mustaqbalka jaamacadda faculty-gee waxaa jeclahay inaad barto public administration ما شاء الله maanta farxadaada waxa la soo koobi kara buufinkaagan waa wadataa xafladii iyo wixii masoo gabagabowday mise hadda kadib waa la dhigi rabaa masoo gabagabowday walaa ma sha Allah aad u faraxsanahay xafladda macallinka Soomaaliyeed ma sha Allah soo dhawaad kula soo dhawahay hidiyo macallin waa bulshada midkii ka dhex helay maqaam welina loo helay masaal welina loo helin masaal ileen mugi jahliga ayuu nagu helay misbaax hidiyo